Asalaamu calaykum akhyaarta qiimaha badan ee ku xiran kanaalka Samawada soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalka maantana waxaynu kaga hadli doonaa YouTube channel la sheegay in uu awood u leeyahay inuu sheego xilliga uu qof waliba dhimanayo iyo sirta ka dambeysay inuu sheego xilliga uu qof waliba dhimanayo. Balse intayna si toos ugu guda gelin muuqaalka maanta, fadlan like saar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada wixii fikirkaaga ayna nagula wadaag qaybta commentiga. 2020 Vision 2020 Vision 2020 Vision 2020 Vision. Channelkan waxaa la aasaasay sida aad bashaashada ka arki kartaan 15 bishii Juun 2017. Magaca uu channelkani watana waa 2020 Vision. Muuqaalkii ugu horeeyay ee channelkan waxaa la soo geliyay isla maalintii koowaad ee la sameeyay channelkan. Muuqaalkaasina waxaa ciwaan loogaga dhigay Eyes Open oo macnaheedu tahay ilaa ayaa furmay. Intaasi kadibna waxaa channelkan la soo geliyay dhowr muuqaal oo lagu sheegay xilliga ay dhimanayaan dad caan ah. Teeda kalena channelkan wuxuu si toos u bartilmaameedsan jiray dadka caanka ah oo kaliya, yacni wuxuu sheegi jiray xilliga ay dhimanayaan dadka caanka ahi asigoona sheegaya xilliga uu dhimanayo qofka. Xitaa channelkan wuxuu sheegi jiray maalinta, taariikhda, bisha iyo sanadka uu qofka dhimanayo, taasi oona channelkan ka dhigtay in muuqaaladiisa ay dad badani daawadaan kadibna laga doodo. Laakiin channelkan wuxuu si toos u soo caan baxay kadib markii uu saadaaliyay geerida Kobe Bryant oo aan filay inaad badankiinu garanaysaan. Ciddii aan garanayna, Kobe Bryant waa ciyaaryahan dheela basketballka, wuxuuna u dhashay dalka Mareykanka. Kobe Bryant wuxuu dhintay 26 bishii January 2020. Muuqaalka lagu saadaalinayna dhimashada Kobe Bryant waxaa lasoo dhigay channelkani 8 bisha Agoosto 2017, taasi oona la macnaa in geerida Kobe Bryant la saadaaliyay 2 sano kahor dhimashadiisa. Sidoo kalena channelkan wuxuu saadaaliyay dhimashada Christopher Tolkien oo dhintay 16 bishii January 2020. Haddana wuxuu channelkani markale dhimashadiisa saadaaliyay Xusni Mubaarak oo dhintay 25 bishii February 2020. iyo wuxuu kaloo channelkani dhimashadiisa saadaaliyay Lethal Richard oo dhintay 9 bishii May 2020. xitaa wuxuu kaloo channelkani saadaaliyay dhimashada Mark Henry oo dhintay 8 bishii January 2020. Arrinka kale oo la yaabka lahayna wuxuu ahaa in dhammaan muuqaaladaasi oo idil oo lagu saadaalinayay dhimashada dadka caanka ahi la soo geliyay YouTube-ka 2017. Muuqaalkii ugu dambeeyay ee qof dhimashadiisa lagu saadaaliyay waxaa lagu saadaaliyay dhimashada Russ Bader Ginsburg oo dhintay 18 bishii September 2020. Intaasi kadibna waxaa cirka isku shareeray magaca channelkani oo ahaa 2020 Vision. Dadkuna waxay bilaabeen inay ka hadlaan waxyaabo ku saabsan channelkani. Qaar dadka kamid waxay milkiilaha channelkani ku tilmaameen inuu yahay sixiroole, kuwo kalena waxay dhaheen sixiroole ma ahan ee wuxuu haystaa aalad waqtiga lagula safro. Qaar kale oo dadka kamid waxay dhaheen si ka fiirsasho leh ayuu milkiilaha channelkan u qiyaasaa xilliga uu qofka dhimanayo. Muddo kadibna markii ay hadalhaynta channelkani badatay, waxaa channelkani lasoo dhigay muuqaal ciwaankiisu ahaa Eyes Closed ilaa ayaa xirmay. Muddo kadibna markii milkiilaha channelkani la weydiiyay su'aalo badan oo aan xad lahayn, wuxuu mar kale soo dhigay muuqaal ciwaankiisu ahaa Face Reveal weji muujin. Muuqaalkaasina markii la furo waxaa shaashada kusoo qormaysa link in the description, taasi oona loola jeedo linki ayaa qaybta description ka yaalo. Haddii aad linkigaasi taawatana wuxuu si toos ah kuu geynayaa muuqaal lagu sharxayo sirta ka dambeysa in channelkani uu sheego xilliga saxda uu qofka dhimanayo. Muuqaalkaasina waxaa kasoo muuqday milkiilaha channelka 2020 Vision, wuxuuna yiri magacaygu waa Kai, waxaana ahay filmmaker. Maalmahan waxaa badatay hadalhaynta channelka 2020 Vision, aniguna waxaan ahay milkiilaha channelka 2020 Vision. Aniga xaqiiqadeyda haddii aan ka hadlo waxaad iga sheegaysii ma ihi, aniga sixiroole ma ihi, mana haysta aalada waqtiga lagula safro. Dhammaan muuqaalada aan soo geliyayna channelka 2020 Vision waa fake. waa fake. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sida aan u saadaalin jiray geerida dadka. Xaqiiqatan ma aanan saadaalin jirin dhimashada dadka, laakiin waxaan samayn jiray marka hore intaan muuqaal ka diyaariyo qof caan ah ayaa YouTube-ka qaybtiisa private ka dhigi jiray. Muddo kadibna markii uu qofkaas caanka ahi dhinto, YouTube-ka dhexdiisa ayaan ku edit gareyn jiray muuqaalkii aan hore uga diyaariyay anigoona ka bedelaya taariikhda iyo sanadka. Kadibna muuqaalkaasi waxaan ka dhigi jiray public si ay dadku u daawadaan. Dhab ahaantiina sidaas ayaan u samayn jiray muuqaalada. Casrigan la joogo ma adka in la sameeyo sawiro iyo muuqaalo been abuur ah, mana wanaagsana waxyaabaha qaar aad social media ku aragtaan inaad rumaysataan. Qarnigan la joogo waa caadi in qof uu sameeyo waxyaabo laga yaqyaqsiyoodo kaliya si uu caan u noqdo. Naseexada ugu dambeysa aan shakhsi ahaanteyda ku siinayo waa ha isku dhiibin social media.